السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمان تالكي نوغي سعون دونا تحاني شيكدا شندن اللي اي نكو باهيني موقال كني كهريي حلقة دي سلابادنا وحيكو بلابانيسا سيدان reer kanagteena bal orda oo inta adiina adeerka israacdaan gaadha waliba buul yar oo gaarahna way leeyihiin markay kordaab iyo wiilkeedii kafta dhameysteen ayuu bal yax soo jeediyay in horta intaanu guda gelin jiidaasha guurnimadiisa uu u baahan yahay inuu magaalada muraasi tago awrna uu reerka ka sii kaxaysto kordahabna arrinta hadalka ma soo celin oo waxay tiri maqbuul balayax iyo cooli oo in adeerkii ahaa ayaa caywiisinkii ciyaar gudub baxay kadibna waxay afka saareen jihada bari oo beesha muggeedu u badan yahay qoodh iyo xero marka ay sawaxanka reerka ka libdheen ayay geel cufan dugsigiisa fadhiisteen dabadeedna waxay seeqa dhageysteen sacab iyo sawaxan ciyaareed dhaqaaqii ayay joojiyeen dhagahana laydha ayay la raaceen cida adhiyaha qaaqda wargida qooqan dananka naylaha iyo sawaxanka xoolaha ee hareerahooda ka baxaya ayaa cabbaar dhagahooda mashquuliyey hase yeeshee waxoogaa kadib waxaa dhagahooda ku soo dhacay codka iyo ciyaarta saarayda la yidhaahdo oo meel daaqsin geel jirta ka balweynaysa kadibna markii ay hubsadeen inay ciyaar tahay ayay labadooduba hal mar yidhaahdeen wallaahi way baxaysaa kadibna inta la kaakacay oo afka la saaray jihadii ciyaartu ka baxaysay ayaa dhababaco dhagaha la nabay kadle iyo kabti waxay kaymaha cufan ku sii dhex jibaaxaanba oo ay dhawaaqa iyo jiibta ciyaarta kolba leedho ku beer qaado waxay ku soo baxeen qolihii habeenka ciyaarta saarayda loo butaystay oo laga weegaaray kax bannaan ah waa 14aad intuu dayuxu mudh iyo gacan iska dhigay xirka xuduntiisa isku beegay oo ay fallaadha iftiinkiisu arlada dhalaar ka dhigeen kagada ciyaarta waxa isku arkay dhalinyaro jibada iyo balwada ciyaarta saarku uu suuqmay oo ka soo kala dareeray guryo caanaha garoorka iyo kuwa meedhanaanka ahi farq ku qotomaan ciirtana la daadiyo qolaha ciyaarta waxa sida faraawilka ugu heemaalan qaanso gabdha oo inta ay sararta iyo garbaha is saareen raxlada iyo jaanta kaga dayaaminaya oo ataanqaadkoodana moodo mowjada badeed oo hadhaacinaya inta waxa ku dheer luuqda sida fardaha oo dananaysa iyadoo aanay isla waayeen jaanta cagta jiibta codka iyo jamal dhowga sacabka waxa golahan ciyaarta saarayda ka dhaxaloosiyaya wiilka qalambaawiga ee markuu ku dhufto hoobayda ay luuqdiisa gabdhadaayo islaamaatu kubaasita usha u soo qaataan waa qowdhan yare waa markay xalaaraddu cirka gaadho ilmo ciyaar yaqaan usha lagu kala horo balayax iyo cooli markay ciyaarta qoobka galiyeen waxa dhexdooda ka rablaystay timo dheer gabadh ah oo agmeerkeeda naftu ku raaxaysanayso guudkeedana sanbullo ka duulayaan lama se aqoonsan reerka ay ka soo baxday ama se ay ka soo ciyaar gudday balayax oo eebahiba u siiyey luuq baxsan oo marka uu ciyaarta ka qaadayo hablaha sida caanaha ciirta loo lulo u lushra ayaa ciyaarta jeeniga geliyey oo ku dhuftay luuqdiisii cudooneed waxaana ereyadii uu ku dhawaaqayay ka mid ahaa hoobey hablow weli qaadka maan baran ragga qaayib iyo laan qalamadoobe iyo hawd qowldaajiyanahay caawadan qudheedana anigoo maryaha qubay qabiiloon hurdada laday ayaa qaraxa sacabkiyo qalaadkiinnu ii baxay hablihii qaali qamar qorshe iyo ugaa sacad qalbigaa idin doortee qaayibay nabad ma sheegteen qoyskiinnu waa kee balayax intaa markuu yidhi waxa u jawaabtay bullo gabadh ah oo tidhi caliyow inaadeer ciddu way nabdoon tahay colka dhiigga daadsiyo caaro dhuubi may dhicin cudurrada waxlaayiyo beli culuska yaasiin gidiga habeenkii waxay dhalintu jiibta iyo sacabka isu baacisaba markii uu waagu hoosta ka soo gudubtay ayaa lagu kala dareeray ciyaartii goobtii dirida ahaydna waxay u ekaatay galgelin boodh leh cago habaas leh ayaa lala kala dareeray habluhu iyagoo koox-kooxa ayay intay isku degsiimo dhoweydba jihadii guryahoodu ku xigeen u dhaqaaqday hase yeeshee ragga ninna ma aadin jihadii gurigoodu ahaa ee nin walba waxa uu daba dhaqaaqay gabadh meel martay si uu inta yar habeenkaa ka hadhay erayowla gaadho balayax iyo cooli waxay jaqaftii horeba daawadayaal xalqadeena labaad ee sheekada shandareleyna halkaasi ha inoogu joogto